afar caruur ayaa keenta u doontay miro. 2 wiil iyo 2 gabdhood ayay ahaayeen. Intay maqnaayeen ayaa reerkii ka guuray meeshii uu degnaa. Markii ay soo laabteen ayay ka waayeen gurigii dadkii. Fariido ayaa la dheeran jiray gabadha ugu weyneed. Waxay ahayd gabar caqli badan, sidaasaa loogu bixiyay Fariido. 4 caruuraadkii ayay soo raaceen. Waxay soo socdaanba waxay ku soo aadameen gayi cidla ah oo aan cidna joogin. Say u socdaan ayaa waxaa u muuqday aqal. Aqalkii ayay ku leexdeen oo waxay is yiraahdeen weydiista cunno iyo waxaad cabtaan. Dhaqalatadii dhagdheer ayaa lahayd aqalkaas, waxayna qabsatay 4 caruur. 4 caruur aad bay u gaajaysanaayeen. 4 beri maysan cunin quud. Dhagdheer ayaa caruurtii siisay cunto iyo waxay cabaan si ay u koraan oo ay beri ka maalin u qalato. Berigii dambe, Dhagdheer ayaa Fariido ku tiri, orod ii keen qoryo aan cunto idinku kariye. Fariido ayaa tiri, eedo walaalkay ha i raaco si uu ii weheliyo. Dhagdheer ayaa tiri, haye dhib male, soo dheereeya laakiin. Fariido iyo walaalkeed way socdaaleen oo waxay aadeen duurka. Intii ay maqnaayeen ayay wiilkeeda dhegta dhiiga u dartay oo bireysatay. Beerkii ayay karsatay oo xoog ku siisay gabadhii yareed. Inna ayadaa cuntay. Ileen waa dalqalatee. Gabadhii yaraa way in waxa la siiyey uu yahay beerka walaalkeed oo tiri, alla beeri walaal kharaara. Intii ay maqnaayeen gabadhii ayay ku dartay oo qalatay. Fariido iyo walaalkeed way carareen. Midba jiho ayuu u cararay si aysan labadaba u qaban oo aysan u qalan. Fariido iyo walaalkeed way kala lumeen oo midba midka kale uu waayay. Fariido say u socotay ayay waxay aragtay libaax dad qalad ah oo jidka ku soo socda. Fariido waxay fuushay geed aad u dheer. Libaaxina wuu hoos fadhiistay geedkii si ay markay u soo degto u qasho ama u cuno. Fariido walaalkeed ayaan badan ayuu raadinayay walaashiis. Markii ugu dambeysay ayuu helay raadkii walaashiis. Wuxuuna arkay ayadoo saaran geel. Wuxuu arkay geedka walaashiis oo libaax ag fadhiyo. Inta uu dab shitay ayuu ku tuuray baalkii.
baalkiina wuu cararay. Fariido iyo walaalkeed sidaas ayay uga soo tageen khatartii. Raarayn iyo farxad ayaa ka muuqatay. haween ma dhamaalayiri hablo aan iga yihiin hanan ee hubaal halmasiisana ma dhamaa. Fariido walaalkeed subaxii ugaarsi ayuu aadi jiray, ayadana mira ayay soo guri jireen. Galabtii walaalkeed hilibka uu keeno ayay bisleen jireen, sidaasna ayay ugu noolaayeen farxad iyo raynrayn iyo barwaaqo.